asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiin maa meel walba aad joogtaan iyo si walba ay noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan wararkii u waaweynaya suuqa ee maanta la hadalhayo hadana kale ayaad ugu barateen inaad ka daawataan janaalka Gold TV haddii uu janaalka ugu cusub yahay walaal nagu caabi subscribe like share comment waad ku mahadsantihiin wararka ugu weyn maanta magacyada ku xusan waa Paul Pogba, Ramsey, Rabiot, Anthony Griezmann iyo Werner ayaana kamid ah ciyaartooyda naadiga lagu magacaabo Juventus ayaa markaan qorsheynaysa ciyaaraanka Weres qadka dhexna ugu ciyaara Ramsey iyo ciyaaraanka reer France Andre Rabiot inay Manchester United qanciyaan si oo helaan ciyaaraankeedii hore Paul Pogba oo dhacdada ciyaaraanka ku guuleystay koobka adduunyada ayaa markaan qorsheynaya inuu ku soo laabo garo magaalada Turin ee kooxda Juventus waxay diyaarinaysaa laba ciyaaryahan ee lacag gaaraya 125 milyan inay ku soo qaato xilaasan jirka reer France la Gazzetta dello Sport ayana shakadan daabicisa waxaana soo xiganaysaa Mail on Sunday ayana soo xiganaysaa isla wararka Pogba waxa kamid ah wakiilka caanka Mino Raiola ayaana markaan la hadlay kooxda Juventus wuxuu u sheegay sida ugu macquulsan ay ku heli karaan in ciyaaryahankani Manchester United ugu ciyaar maadaama kulamada ugu dambeeyay Manchester United uu ka maqnaa ciyaaryahankan wuxuuna u sheegay inay heli karaan ciyaaryahankani hadii ay labadaas ciyaaryahan lacag Manchester United miiska u saaraan maadaama Manchester United uu san u ciyaarin hanaankii ugu wanaagsan oo sanaysan Paul Pogba kaas oo raba inuu iskaga hayaamo Old Trafford. Sunday Telegraph ayaana sheekadaasi fahansan waxyaabaha kale ugu weyn maanta waxaa kamid ah naadiga Inter Milan macalinkeeda Antonio Conte ayaa aad u xiisanay ciyaaryahanka kooxda Arsenal ee weerarka ugu ciyaaray Pierre-Emerick Aubameyang. Antonio Conte hore u soo leelay kooxda Chelsea ayaa markaan arka ciyaaryahanka Aubameyang inuu ku soo biiray naadiga Internacional hore Inter waxay haysataa Lautaro Martinez iyo Romelu Lukaku oo weerarka balse markaan Antonio Conte wuxuu rabaa inuu ciyaaryahanka reer Gabon Aubameyang uu ku soo kordhiyo kooxda Internacional 30 sano jirkan ayaana waqti fiican la qaadanaya naadiga Arsenal ee ku ciyaarta garoonka Fly Emirates. Sunday Mirror ayaana sheekadaas maanta qalinka u qaadatay Inter Milan ciyaaryahanka reer Argentina ee Lautaro Martinez ayaana laga yaabaa inuu ku biiro kooxda Barcelona xidigan ayaana macquul tahay inuu bedel u noqdo Anthony Griezmann kaas oo hanaankii ku heystay garoonka Wanda Metropolitano uusan ku heysan garoonkan Barcelona ayaana quudareynaysa in Lautaro Martinez ay ka soo qaadatay naadiga Inter Milan. Tutto Sport ayaana soo xiganaysa Sunday Express ayaana sheekadan soo xiganay Tutto ayaana qalinka u qaadatay Liverpool ayaana markaan rabtay inay la soo sixato ciyaaraanka RB Leipzig weerarka ugu ciyaara Timo Werner naadiga Redis ayaana markaan rabtay in weerarkeeda ay soo buuxso maadaama iminka ay joogaan kaliya 3 ciyaaryahan hadduu mid ku dhaawacmana ay sanaysan bedel rasmi ah waxayna rabaan Timo Werner inay bedel ugu dhigaan 48 milyan ayaana lagu qiyaasay ciyaaraanka 3 sano jirka ee u dhashay dalka Germany. Nicolas Sarjan ayaana daawacday oo German ka soo baxday laakiin waxa soo xiganaysa Sunday Express ayaana sheekadan soo xiganaysa waxyaabaha ugu weyn waxa kamid ah Arsenal ciyaaraankeeda daafac ugu ciyaara Nicolas Kieran Trent ayaana markaani waxaa aad u doonaysa in kooxda Leicester City uu hogaamiyo Albiran Rodriguez macalinkan ayaana aad u xiisanay ciyaaraanka Scotland maadaama uu kamid yahay ciyaartooyda ugu fiican ee daafac ugu ciyaara Kieran Trent King Power ayaana loogu gacan haatay 90 minute ayaana sheekadan daabicaysa bogga Twitterka ee kooxda Barcelona ayaana lagu shaaciyay in Neymar uu soo laabo doono bogga Twitterka ee kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa goordhaweedna lagu soo qoray qoraal lagu shaaciyay Neymar GR oo dib ugu soo laabo doono kooxda iyadoo Barcelona ay durbadiiba miiska ama masaxday fariimo isla markaana soo saartay warbixin rasmi ah oo uga hadlayso dhaleecayntan fariintan ayaana la soo dhigay bogga Twitterka ee Barcelona ku qornay sida tan waxaanu nahanay our mean waxaana qoranay fariin ku aaday in dib ugu soo laabo doono kooxda kubadda cagta ee Barcelona ciyaaryahanka lagu magacaabo Neymar GR ugu dambeynna kooxda Barcelona ayaa daqiiqada kadibna ka bixisay maadaama koonka Barcelona oo la jabsay sababtaasna fariinta loogu soo qoray in Neymar GR oo markaan ka tirsan naadiga Paris Saint-Germain oo dib ugu soo laabi karin fariintaas way tirtirtay kooxda Barcelona wararka ugu weyn suuqa ayaana kuwaasi daawaday ahaayeen waad maasantiin la socodka warkeen.